Asalaamu calaykum. Kusoo dhawaada xusuus qorkii suhuur iyo qaybtii labaad oo aan si aanba qaadi doono caawa. Waxay nooga bilaabmaysay warqaddii 6 Jimce 17 bisha tobnaad 2014 10:22 habeenimo. Maanta ayaa 8 ku ah maalintii aanu nimid Adiis. Sida uu Cali noo sheegay 10 maalmood ku gaadhi mayno. Waxay ahaayeen maalmo dhowr dareen oo isku walaaqan ka kooban. Maalmo maskaxda ka shaqaysiiyey. Marka koobaad waxa uu warwariga hayaa joogitaanka magaaladan. Maaha meel ka durugsan Hargeysa. Dadku way ku badan yihiin, cid ku garata waayi maysid. Sidaa darteed ayaanu magacyo kale ula baxnay. Dadkii aanu beenta u sheegnay ayaa iyaguna su'aalahoodu soo badanayaan kolba markaanu magaalada sii joogno. Inamada qaar ayaa qaadka cuna. Taasi waxay sababi kartaa inay hadlaan. Hadal badan uma baahnin maanta. Warwarka labaad ee i haya ayaa ah waalidkay. Talow maxay dareemayaan imika? Weli miyay fahmeen inaan tahriibayo? Waxa kale oo ay cabsi gelinaya inay suuragal tahay in la iga soo raadiyo Adiis. Inuu aabba la soo xidhiidho dadka uu magaalada ku leeyahay. Waxaan ahay qof magaalada oo dhan difaac kaga jira. Qofkii isoo eegaba waan ka sii jeesanayaa. Qofkii isha igu nasiyaba waan ka shakiyayaa. Xataa waxaan beddelay qaabkii aan u labisan jiray. Hagoogta ayaan nooc kale ka dhigay. Qof waayeela ayaan iska dhigay. Waan ogahay inuu shakigaygu badan yahay, laakiin sida Nimcana ma noqon karo. Iyadu qosol iyo farxad ayaabay ka qaaday safarkan. Laakiin ayaamuhu warwar kaliya igumay dhaafin. Magaalada ayaan u baxay. Adiis ayaan dhaayaha la dhex qaaday. Magaaladu weynaa oo kala jeedana. Weligay magaalo intan leeg maan arag. Axaddii ayaan baxay markii u horreysay aniga iyo Nimco iyo inan hudheelka degan. Gabadha Xabashiga taqaana oo muddo dheer meesha joogtay. Ninkeeda oo Ingiriiska jooga ayaa dacwad ugu maqan. 2 sano ayay joogtay imika. Ninku 2 jeer ayuu u yimi. Marna 10 cisho ayuu la joogay, marna 7. Ishcala aroos ayaan idhi. Waa nolol riwaayada. Samir ayay haysaa wallaahi. Inanta ayaana kaxaysay. Markaata ayaanu ku hagaagnay. Alla suuqu weynaa. Fajac ayaa igu dhacay. Markasta waxaan isbarbardhig ku samaynayaa wax kasta oo aan arko iyo wixii ay magaaladeedu lahayd. Horta dhanka weynida Hargeysa waa la ciyaaleeyay. Wadooyinkana hadalkooda badaa. Dhowr wado oo uu xirsi xadhigga ka jaray ayaa ila weynaa. Wax kale ayaan arkay. Markii aan ku sii soconay suuqa Markaata, suuqii Gobonimo ayaan sawiranayay. Dhowr dhibcood ayaa Gobonimo la diray. Intii aanan gaadhin suuqa ayaa waxa sii bilaabmay yeedhmada ka imanaysa ganacsadayaasha yaryar ee wadada dhinaceeda agabka kala duwan ku iibiya. Naaya ayay dhammaantood ku dhawaaqayaan. Cadho ayay naftu iga baxday. Sababtii ayay naaya ay odhan karaan ma iyaga ayaa inaagaystay. Waa anigaa jiq noqday. Xitaa way qoslayaan markay sidaa ku leeyihiin. Wasakh bilaa edaba. Waxaan soo xasuustay nin maalin naaye igu yidhi. Wallaahi runi allay taqaanaaye suuqa ayaan waray. Wax naf yar ayuu ahaa. Nasiib ayaan lahaa. Waayo kolleyba nin xoog weyn haddii uu ahaan lahaa faraha lamaan galeen. Ma nacas baan ahay. Laakiin kani midaan si qayr soojin karo ayuu ahaa. 2 mijood oo barqaaba iyo qoor yaroo dhuuban ayuu lahaayo. Cagaha ayaan dhulka uga qaaday. Warnaagta ninka ka qabta ayaan xasuustaa inay dadku ku dhawaaqayeen. Markii aan ka dhaqaaqay muddo kadib ayaa dhulka laga qaaday isagoo la moodo inuu gaadhi jiiray. Imikana dareenkii maalinta ayaa igu kacay ciil weynaa. Waxba waan samayn kari waayey. Ma magaalo dhan ayaan la dagaalamaa. Laakiin xaaladdu sida aan moodayayba may ahayn. Mar dambe ayaa lee sharaxay inaanay xumaan ka ahayn ayaan fahmay. Gudaha ayaan noo sii galnay. Badi weyn dad ah ayaanu dhex muquuranay. Araggayga, maqalkayga iyo dareenkayga ayaa hal mar oo kaliya wada shaqaynayay. Si xawliya weliba. Baayacaada igamay badinayn oo tababar ayaan soo qaatay. Wixii ay wax iigu sheegaanba barkeed ayaan uga bilaabaa. Anigu waxba ma iibsan, waayo lacag ma haysan. Laakiin Nimco iyo inantii kale ayaa dhowr shay soo iibsaday.
Isniintiina sidoo kale waan tegay. Markan aniga iyo Nimco oo kaliya ayaan noo hayn. Laakiin salaasadii ayay sheeka dhacday. Sidii caadada ahayd ayaan waaga la bariyay. Cadceedda oo soo barjeeda ayaan caadi u toosay. Daaqadda dhankeeda ayaan sanqadha ka baha dadka bannaanka maraya aan kala socdaa. Shanqadh kasta cod gaara ayay leedahay. Qofka cagihiisu siday dhulka u taabanayaan ayaad ka garan kartaa socodkiisa. Tallaabadu intay isu jirto ayaad ka garanaysaa inuu naag yahay iyo inuu nin yahay. Wax yar markii aan dhagaysanayay socodka dadka oo ay soo dhex gelayso khuurada Nimco ayaan ka kacay gabashay. Intii aanan bannaanka u bixin ayaan masarka hagaajistay, wejigana sacabada mariyay. Musqusha si aad u tagto markaad albaabka qolka ka soo baxdo waa inaad bidix u soo martaa daarad yar oo luuqa. Luuqaasoo ku geynaya barxad ballaadhan oo loogu talagalay inay dadku ku caweeyaan. Telefishan fiidkii la daawado sida Soomaalidu u fahanto ayaan garan waayay ayaa miis dheer dhakadiisa si qaab daran u dul yaala. Markaad meesha soo dhex marto ayaad kaabado 3 ugu soo dhaadhacaysa daarada dusha bannaan. Midig ayaad u gelaysaa luuq kale oo qolal kale ku sii dhex marinaya. Wax yar kadibna qolka midigta kaa qabanaya ee albaabkiisu dhulka ka kacsan yahay ayaa musqushii ah. Waa jid aan maritaankiisa nacebahay, subaxiina hadalkiisa badaa. Markii aan ka soo dhammaaday daaradii dusha bannaanayd, intii aanan soo wada gelin luuqii labaad ayaan arkay. Indhahayga oo bidixda oo kaliya hay shidan tahay ayaan naxdintii tii midigtana kala qaaday. Oo kiyaalihii ma xidhna. Labiska sidii inamadii reer Hargeysa ayuu dhexda iska xidhay. Surwaal aan wax badan ka dheerayna hoos ayuu dhaadhacay ilaa inta uu kabaha madowga la dhalaalaya korkooda fuulayo. Feedhaha aanaadka u waaweynayn korkooda waxaa ku dadan shaadh maro duna ka samaysan oo si dheelitiran u raacaya qaabka jirkiisa ilaa halka qoortu ka bilaabanto. Timo aan kala dheerayn ayaa dhakadiisa dul fadhiya. Nasiib wanaag isagu imuu arkayn. Albaabka uu soo xidhayo ayuu ku sii jeeday intii aan ka boganayay. Wax yari ma sidanba u qurux badnaa. Runtii weli nin si gaara umaan eegin noloshayda. Maanta haddii aan wax qaran lahaa inaan si fiican u toosay markii aan arkay intaas ayaan qaran lahaa. Dabeecaddiisa hore ayaan ula dhacay. Araggiisa ayaa farxad geliyay maanta, marna i naxdin geliyay. Wax ayaa halkaa laabta hoos iga go'ay. Subax hore ayay ahayd. Waanan iska kala daadsanaa. Waan soo kala hortoosay. Diracayga sidaan u jiidayo weli wuu hurdaa. Masarka si kala janjeedha ayaan u xidhnaa. Dacas kale kaanahna dhulka ayaan si basar xun u jiidayay. May ahayn waqti rag la kulmo, gaar ahaan Hanad. Mar ayaan isidhi dib u noqo oo baxso. Baxso sidii wax waalan, laakiin taasi mid ka macquulsan ayaan ku dhaqaaqay. Horta hurdadii markiiba way iga duushay. Gacmaha oo farba meel ay u jeedo ayaan hagaaga kula rooray. Masarka ayaan 10 farood midba meel ka geliyay. Markii aan ka saarayna waxaan kala garan waayay inaan hagaajiyay iyo inaan uga sii daray. Wax 2 tallaabo ka yar markaan u jiro welina uu albaabkii ku sii jeedo ayaan damcay inaan aayar daba maro isagooni arag. Malaha kaneeco ayaan ismooday. Indhaha buurbuuran ee isoo eegaya ayaan ku war helay. Alla ila naxdin dhulku kulama go'o. Qalladii kugu dhacday ayaan hoos u idhi. Anigoo afkana ilkaha muujinaya haddana 5 astaghfirullah ayaan ka dabageeyay. Codkiisii gaabnaa ayaa xigay. Subax wanaagsan suhuur. Subaxaaba kala dhac. Wacan oo wanaagsan walaal Hanad. Ayaan sidii qof cunaha lahayo dirqa doonta u soo mariyay. Alla khajilaad weynaa. Xuf ayaan ku dhaafay. Anigoo maqiiqan hadalintaa ka badan ma karayo. Suuliga oo albaabka uu taagan yahay ku xiga ayaan ku hagaagi waayay. Sidii naag meel kale u socota ayaan suuligii dhaafay. Hal albaab oo kaliya ayaa suuliga ka shisheeya. Dibna uma soo noqon karo oo weli wuu taagan yahay. Dantu waxay igu qasabtay inaan qolkii galo. Iga wala daf ayaan idhi. Ma aqaan dadka gala qolka. Markii aan qolkii dhex istaagay ayaan arkay qof sariirta dul jiifa. Qofkii ayaa sanqadhaydii ku soo jeesaday. Guux iyo codad kale ayuu isku daray. Wuu soo eegay. Gadh weyn ayaan arkay. Waa isagii. Waa odayga ugu sheekada badan hodheelka. Naxdintii ayaan dhaqaaqi kari waayay. Odaygii waan eegaa. Isna wuu soo eegayaa. Wuu guuxayaa oo ma fahmayo wuxuu leeyahay.
markii aan waxoogaa sidii ahaa ayaan maqlay codkiisa. Adeertumaad ahayd. Degdeg waanigaa u soo kala jeestay. Sidii wax waalan waanigaa qolka ka soo booday. Nasiib wanaag Hanadna wuu dhaqaaqay intii aan meesha ku jiray. Anigoo ordaya ayaan qolkaygii orod ku soo galay. Maalintii oo dhan qolka kamaan soo bixin. Naxdin ayuu jidhku i dubaaxinayay. Markii aan Nimco uga sheekeeyey, qosol ayay igala hortimid. Habeennimadii markii la isugu yimid goobta sheekada ee uu telefishinku yaalay, ayuu odaygii sheekadii ka sheekeeyey. Inuu saaka gabadh aanu garanayn ay u soo gashay ayuu sheegay. Hadalkii wuxuu ku dhameeyey in la dardaray. Anna waxaan ugu daray, adeer malaha waa suuliga adag degan tahay, qolka iskaga guur. Cawayskii marka anigii iyo Nimco aanu ku kaliyownay qolkayaga ayaanu sidii caadiga ahayd faallo galnay. Inta badan dadka ayaanu xamanaa. Dadku in la xanto way ku kala fiican yihiin. Dadka qaar waxaad soranaysaa yaa caawo dhanka sheekeeya. Hanad ayaa noocaasa. Waa dadka lagu dambaabo. Haddii aanad dabeecadiisa aqoonin qof wax u dhiman yihiin ayaad moodaysaa. Isaga ayaanu ku qosli jirnay habeen kasta, laakiin caawa maya. Ma garanayo, balse markii ay Nimca tidhi kii indhaha kalluunka lahaa maanta wuu xaragoonayay. Qosol ayaan iska waayay. Maskaxda ayaa diiday. Waan ka aamusay. Waan la sii wadi kari waayey. Keligeed ayay qososhay. Markii dambe ayay weydiisay sababta aan u sheekeyn waayey. Waxaan u sheegay in laga wanaagsan yahay in dadka la xanto. Ila waa Nimco oo kama nabadgelayay. Waa ta hadal iga dayn weyday. Naayarka macalinka ku dul saaran ba'nay. Waan u jawaabi kari waayey. Maya iyo haa midna way ku haboonaan weyday. Fursad ayay iyaduna heshay. Waa taa bilowday. Alla inanta waa la hayaa bisinkee. Indha buluc ayay jeclaatay. Naama aamusanaad caashaqsan tahay. Bal aadba aamusii. Inta aan istuuduubay ayaan sidii ku seexday. Iyada oo duryamaysa. Subax dambe aan waqti hore kaco waan ka caagay. Laakiin Arbacadii Nimco ayaa ay kicisay. Waxay ii soo jeedisay inaanu suuqa tagno. Aniguna waxaan ku diido ayaan waayey. Qorshe aanan ogeyn ayay wadataa. Markii aan diyaar noqday ayaanu israacnay. Albaabka weyn goortii aanu ka baxnay ayaan arkay. Sidii shalay si ka qurux badan ayuu u labisnaa. Sidii qof wax sugayeyna wuu u taagan yahay. Markii uuna arkay ayuu wejiga oo dhan ka qoslay. Nimco ayaa si lama filaana ugu dhawaaqday. Malaha waadna raagsatay. Waan fahmi waayey waxay ka wado. Hanad ayaa hadal degan u celiyey intii aanu nagu soo cagdarin ka hor. Gadaal waxaan ka ogaaday inay iyadu soo ballamisay isaga. Inay ku tidhi kaale waanu baqaynaaye noo weheliyeel. Si goosgoosa ayaanu sheeko wadaagu lahayn in doora. Markii dambe ayaanu meel sharaabka qabow laga cabo soo galnay. Dhammaantayo afakaadho qabow ayaanu dalbannay. Telefoon ayaan ku hadlayaaye sii fadhiista ayay nagu soo dhex tuurtay. Intii aanay iyadoon jawaabiga sugin albaabka ka bixin ka hor. Waa sheeko ay ku tala gashay. Waa waxay sii diyaarisay. Anna inaanan fahmayn ayay imoodaysaa. Wadnaha ayaa anigoo arkaya garaaca laba jibaaray. Dhugtiisa ayay dhagahaygu maqlayeen. 4 kursi oo miis yar ku wareegsan ayaan dhankooda u dhaqaaqay. Mid koonaha gidaarka ugu xigay ayaan haabhaabtay. Salka ayaan la haleelay. Isna waa ka fadhiistay. Hortayda waa kan soo yuurura. Alla Nimcoy lagu qaad oo samada lagula bax. Warqadii 7 Sabti 18 bisha 10 2014 11 iyo 4 daqiiqo. Naxdinta i haysay weynayda. Baqdinta aan dareemayay badnayda. Xaaladda ay Nimco igu cidlaysay oo igu cusbeyd awgeed gariir ayaan bilaabay. Codka ayaa iga go'ay. Naqaska ayaa cuslaaday. Indhaha ayaa dhaqaaqa joojin waayey. Faraha ayay midiba geesisu taagtay. Dhagaha ayaa guux bilaabay. Maxaan ku idhaahdaa? Halkeen ka bilaabaa? Laakiin maanta Hanad isbedel ayuu keenay. Magaca Ilaahay wuu iga yaabiyey. Qasabad aan isiri way xidhnayd ayuu furay. Hadal uu hayay ayuu sida daadka iigu qaaday. Maan filayn. Malaha kaydii uu hayay ayuu ii furay. Dee ileen hadal badan nagumuu darsan jirine. Maanta intii uuna odhan lahaa maalmihii tegay ayuu aniga dushayga ka qubay. Alla maxaan nafisay. Waxaan is lahaa adiga ayaa kaxayn doona.
adiga ayaa jiidi doona. Aniga ayaaba dusha laygu qaatay. Badweyn sheeko ah ayuu i dhex dhigay. Markaasuu gacanta i qabtay si aanan u quusin. Aayar ayuu adduunyo aanan aqoon i dhex geeyey. Inaan kufo ayuu iga ilaaliyey. Wuu i daadihiyey sidii ilmo socod barad ah. Anna ag jooggiisa waan ku qabowsaday. Sharaabkii hortayda yaalay maan haleelin. Afkiisa yar ayaan daawanayay. Carabkiisa kolba ilkaha dhexdooda ka soo boodayay ayaan la haystay. Dibnihiisa nagadaa wuu i deeqay. Waxa yari wanaagsanaa. Waxaan sidhi aniga ayaa lay dhalay kan. Aniga ayaa lay koriyey. Markaasaa hanadna loo bixiyey. Kani waa hanadkaygii iga walle. Carbal waa naagta faraha la soo gasha. Ta ku dhacda in la yaabi. Balaayaa dhici markaasuu bilaalna eedaami. Anigoo tii u dambaysay ku jira. Uun ha iska soo gasho tii nimco. Alla soo cir naftu kaagama baxdo. Cagaheedii waaweynaa oo dhulka dharbaqda ku haya ayuun baan ku war helay. Naa walaalay maad iska yara maqnaatid. Markaan kuu bahnaaba waa adigii iga sii ordayee. Maxaa imika ku keenay? Waa aniga indhaha ku gubay. Isna markuu arkay iyada waa kaa aamusay. Dee waa taagtayda uun harbashtiri fadhi weynaa naagto. Suuqa markii aanu soo wareegnay ayaanu soo guryo noqonnay. Daal badan oo cagaha iga hayay oo aan doonayay inaan ka nasto. Markii aan maqlay war maskaxda iga daalin doona. Intii aanu maqnayn ayuu Cali yimi. Cali qoti marka uu yimaado waa laba mid uun. Ama waa la baxayaa ama waa la diyaar garoobayaa. Waxba kama dhexeeyaan. Markan diyaar garow ayay ahayd. Sida uu Abshir iyo Maxamed u sheegay. Caawa saqda dhexe ama aroorta salaada hore mid ayaanu jarmaadaynaa. Waanu dhaqaaqaynaa. Jiho aanaan weligayo u dhaqaaqin ayaanu u kictimaynaa. Itoobiya oo ahaa dhul aanu dhawaansho ka dareemaynay ayaanu ka tegaynaa. Intii u dambaysay ee aanu raad Soomaalinimo arkaynay iyo bulsho degan ayaanu ka haajiraynaa. Qol madow ayaanu toosh la'aan galaynaa. Mustaqbal aan la garanayn ayaanu xadhka xidhay. Dagaal aanan garanayn hubka la isticmaalayo ayaan dacas iyo dhowr dirac ula holeelay. Waaga aanan garanayn wuxuu la bari doono ayaan sugayaa. Maryo intii aan haystay afka ayaan ka xidhay. Shandada yar ee ay ku jiraan ee aan dhabarka u ridan doono. Buuggan aan hayo iyo 3 qalinna khaanada sare ayaan ku ridayaa saacadda u dambaysa. Inamada ayaa waxoogaa roodhi ah shandadooda noogu sida. 2 caagadood oo biyo ahina dhabarkayga ayay u heliyaan. Nimco subag aan roodhida ku cuni doono oo marka ay xaaladdu adkaato aanu isticmaali doono ayay sidaa. Sheekooyin badan ayaad maqlaysaa. Warar badan ayaa tahriibka kaa soo gaadhaya. Waxyaabaha ku habboon iyo kuwa aan ku habboonayn. Qaar wax ayay kuu sheegayaan si ay kuwa kale u buriyaan hadhow. Wixii macquul ah ayaanu ka qaadanay fikraddaas. Imika sariirtayda ayaan dul aalaa sidii mara la waday. Caloosha xanuun way dhammaysatay. Madaxu fikir aan dhammaad lahayn ayuu rogrogayaa. Qalinka dhuux aan dhammaanayn ayaa ku jira. Buugga waraaqo aan la isticmaalin ayaa ka buuxa. Waagana saacado kooban ayaa ka dhiman. Warqaddii 8aad Axad 19 bisha 10aad 2014. Weli waagu ma bariyin. Weli caadi umaanu kicin. Baska aanu saaranahay aad uma weyna. 9 aan 10 gaadhin ayaanu nahay. Addiis oo hurda ayaanu dhex soconnaa. Jiho aanan garanayn ayaa loo socdaa. Wadooyinka ayay midiba mid nagu ridaysaa. Wadaha dhinaciisa waxaa fadhiya Cali oo hadal aan la dheerayn luuqadiisa kula wadaagaya wadaha. 2 kursi oo hore waxaa fadhiya Maxamed iyo Abshir. Dabcan hadal kama madhna. Aniga Nimco ayaa ila fadhida. Inay hurdo iyo in kala masixi karo. Madaxeeda ayay ku nasinaysaa muraayadda uu naqaskeeda dusha ka hadheeyay. Kuraasida iga dambeeya waxaa qaybsaday 3 kale. 2 dhinac ayay gaar ugu baxeen. Hanadna dhinaca kale ayuu indhaha ku iloobay muraayadda dhankiisa ah. Kolba hoosta ayaan ka eegayaa. 2 jeer ayuu igu qabtay. Dhaqaaqiisa ayaan la socdaa. Ma garanayo sababta.
laakiin maanta wax isaga ka weyn ayaa isugaya. Maskaxdu wax kale ayay isu diyaarinaysaa. Safarkii dhabta ahaa ayaa isugaya. Waxaan ku qasbanahay inaan fikirkayga dhanka u jeediyo. Sida aan u fahmay, baabuurkani waxa uu nageynayaa meel magaalada ka baxsan oo aanu mid kale ka raaci doono. Sidaas ayaanu macnaystay mar uu Cali hadal isdhexdhigayay. Inkasta oo aanu nahay dhowr wada socda oo isku mowqaf ah, haddana keli ayaan dareemayaa. Ma sababayn karo. Qof kasta noloshiisa ayaa xanaano gaara uga baahan. Sidaa darteed, qof walba tiisa ayaa cuslaysay. Anna inaan keligay xarbiyayo ayaan dareemayaa. Kursiga aan ku fadhiyo ayaan dhaqaaq yar la dul yuururaa. Dhinaca muraayadana nimco ayaa iga xigta. Gacantayda bidix oo faraheeda dhaxanta la qalale kala qaybiyo qalin biiro big ah ayaa marka ay qoraalka joojiso si ay u habayso kolba ku dul nasanaysa buugga ay xaashiyihiisu jacdadka bilaabayaan ee lugtayda bidix dul wadhan. Madaxayga oo aan dhaqaaq badan lahayn ayaa inta badan hoos u jeeda si uu marar magaalada kor ugu eego. Madowgii badnaa ayaa soo yaraanaya. Cirka ayaad moodaa inuu indhaha soo kala qaadayo. Dadka iyo baabuurta ayay imika indhahaygu qabanayaan, haba yaraadaane. Nimco oo i weydiinaysa meeshu fogaa sawkii lahaa 20 daqiiqo weeyaan. Wuxuu xaguu nugu wadaa? Ayaan jawaabu waayey. Maxaan ugu jawaabaa? Ma 20 maahee 40 daqiiqo ayay qaadanaysaa. Mise naa walaal markaynu gaadhno baynu arkiye iska aamo. Mise kuma dhaamee iga daa hadalka. Mise calaacalka dib u dhigo. Jawaabta aan ka fakaraaba way ku habboon tahay. Balse midna waan siin waayey. Aamusnida ayaan jawaab uga dhigay. Inkasta oo aan roodhiyarisa soo dhaafiyey markaan kacay, haddana durba calooshu way dafirsan tahay. Alla baabuurku waxa uu egyahay inuu istaagayo. Waxay meeshani. Wuu istaagay. Waa inaan dash. Halkaa waxaan ku hakinayaa qaybtii 2 waxaana ku dhamaatay warqadii 8aad. Waxaan si aan baqaadi doonaa haddii Ilaahay ka dhigo warqada 9aad. qaybta 3aad baa ku bilaabmi doonta insha Allah. Dhammaantiin waan idin mahad celinayaa. Sidoo kale waxaan idinka mahad celinayaa kommentiyada wanaagsan ee aad ka soo bixiseen qaybtii 1 iyo falcelinaha quruxda badan leh. Aad baa u mahadsantihiin. Walaalaha iyo saaxiibada sida dhow ugu xidhan ayaan Dhalad Show iyo Dhalad Talk Show labadaba. Dhammaantiin waa mahadsantihiin. Intaynu ku kulmi doono qaybta 3aad insha Allah oo aan isku dayi doono sida iigu suura gasho inaan la soo dhaqsado. Waxaan idin leeyahay nabadiino.